بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaadina halkeena gacmo furan iyo qalbi saafi waa idin soo dhaweynaya Soomaali weyn, waan idin salaamaya meel bad joogtaan. maalin wanaagsan. maanta mawduuceena wuxuu ku saabsan yahay ama uu daba socdaa fiidiyoogii shalay sababta ugu cabsanayo shakhsiyadan narsistaha maxay tahay. hayuuka shakhsiga mutacaatifka ee caatifadiisa ay aad ku sareyso isla markaasna ah qof waaci ah oo waxa way aqligiisa maasha Allah tabaaraka Allah dareenkiisana la socdo. sababta ugu cabsanayo maxay tahay anagoo og in narsistaha uu yahay qof dadka xataa mararka qaar gaarsiiyo inuu waalo qofka inuu waalo يعني إنه شك يجري نفطاد مرة قارو جارسينا دت قارو جارسي إن نفطادي هيجا وحوله وحيهت وسو وحول بدها مثلا وحبو سمينايا وحبو كلها مركز وحو كلها إما كم عن دهين هذه خلط مخلايا مرة قاردتك وحاول شك يا جلاء وهاي وقف كان وعاطفة دي ساعات كيسريسو لكن قواد له وقف كان وعبسنا أما وأدقيها أما أيتها قفك وميل صار كراسي asagoo maxay iswareerin waliba koob shakhsiyadan aan ka hadlayo waa shakhsiyad aad isugu kalsoon kalsooni aad u sareyso nafteeda aad isugu kalsoon tahay laba midba waxa way ka guuleysanaysaa narsista waa qof dhageysta tan labaad tan koowaad waa qof kalsoonida aad ugu sareyso iyo ayadoo ah dhageyste qof aad u maqlaayo waxa loo sheegayo waliba maqlaayo asaga adiga iyo markaa kulantaan qofkan sunta waa ka careysiina sama xuquuq sameynaya wax la dhahayo gaslighting oo ku sameynaa ama ka careysiina markuu ka careysiyo adigii gaslighting waa ka careysiina markuu ka careysiyo hadalkii aad dhahday laakiin asaga uu sababteeda la asaga markuu ku xanuujiyay falcelintii aad sameysay falcelina sameynay markii uu ku xanuujiyay qofka soma markuu hadal kugu dhaawaco hadal siinaysa oo bedelkiisii falcelintaadii waxaa laga yaabaa inay ka xumaato tiisi oo asiga uu kuga qabsado oo siisanaya inuu ka careysi kudo ana saan igu dhahday miya ana saan idhahay miya ana saan ma ka mudanahay saana igu dhahday wixii miiska adiga lagu soo gadinaya wixii asaga sheekada asaga ay joogtay asaga dacwo u heysatay laakiin qofka dacwada loo heesta adaa noqonaya qofka dambiilaha adaa noqonaya ee awood u leeyahay qof walba oo sun awood u leeyahay in uu sameeyo oo asaga maxay ahayd dambiga oo banaanka istaago oo miiska uu kugu soo day oo kugu maxay kugu soo gadiyo miiskeed salaha iyo mid saddexaad oo ilaahay oo xadaskeeda amba dareenkeeda oo aad u sareeyo shakhsiyadan waxay leedahay dareen aad u sareeyo oo ay ku ogaan karto ama ay ku akhrin karto qofka horteeda taagan waa dad ruuxaniin inta badan waxay ogaanaysaa qofkan beentiis iyo runtiis sooma isku wareerinayso marka waxa way xadaskii iyo aqligii marka isku darsatid iyo maqalkii marka wax maqleysid kalsoonida naftaadan ay heer sare ay tahay ma ka guuleysan karo waayo waxay og tahay markuu soo hor istaago qofkii sunta ahaa waxa uu sheegayo inay yihiin been saas daraadeeda waxa way isku wareerinayso waxa uu sheegaa inaanay waxba ka jirin soo isla markii waxa way waxay istaajinaysaa booskiisa istaajinaysaa haddii مثلا meel ay isku raacaan oo kale inuu rabo inuu waalo kale مثلا shalay wax soo sameysay shalay wax soo aragtay meeshaan wax ku soo arkay waxaad leedahay soo bax ciyaar kamid ah waa ciyaarhood dadku waxay u maleeyaan waxyaabo yariis laakiin waxyaabo yariis ma waxyaabo la rabo qofka in lagu waalayo ma shalay asi adiga oo isla socotiin amba ayadii asaga yani rag iyo dumar bay leeyihiin markaan ka hadlayo dadka sunta ma ahan wax oo hal dhinac ma ahan labadaba isku dhaqan waay dhaqankooda isku mid waay inay ku waalaan ay awood u leeyihiin marka suuqa marka isku raacdiin oo maxaa meel ku soo aragtid wax baarta inaad soo gadatid waxaad leedahay meeshaan shalay waa marka isla socoteen waa soo wada aragteen meeshaan ku arkay wixii masalan maanta waa ka dhamaad meeshaad geenaysaa waxaad leedahay meeshaan wax ku soo arkay aan iibsanaynaa goormay ku aragnay maba ku arkin ku leeyahay laakiin haddii ay tahay qof caadi hadduu yahay waa shakinaya shaki u galaya qofka markuu shaki ku geli laakiin qofkan
maya kalsoonida naftiisii ayaa heer sare soomaha shaqsiyadan waxay ku leedahay maya aniga waa huwa meeshan ku arkay laakiin hadda ma yaal laakiin waa huwa yacni shaki ma gelin karo masalan shalay waxaa waaye hadal u dhahayaa amba hadal ay dhehaysaa marka hadalka ay ku dhahaan ayaga way inkirayaan waxay ku leeyihiin goormeen ku dhahay aniga shalay waqtigaas iyo waqtigaas ayaa ay dhahday soo caddeyntii waa lagu qabanaya laakiin qofka caadiga ah ee gumeystaha asaga u ah soo dadku way gumeysanayaan soomaha oo maskaxda uu ka haysto oo dulmanihiisa ah ma dhihi karo soo fursad ma u siinayo waayo qofki waa deganaanta dhan uu kaa dhuminaya qof kale ayuu kaa soo saaraya adig dhan qofkan sun waaye suntiisii ayuu ayuu ku saaqsiinaya ayuu ku fidinaya marka in deganaanta ay kaa dhunto in waxaa waaye hadduu ku dhaho shalay saa ma sameynin shalay kanaan ku dhahay shalay kanma ku dhihin qofkii inuu bilaabo inuu shakiyo oo shakigaas maxaa keenayo dhageysta fiican ma aadan ahayn bini aadanka xataa haddii dhageysta fiican hata ani mararka qaar casharada aan diyaarinayo buwan kusoo qortaa waa iloowe bini aadanaa tahay soo ma maaha keliya inaadan dhageysta ahayn laakiin bini aadanaa nahay waa iloobi karnaa iloowshaa imaan karo marka waxaa la sameeyaa mar walbana idiin sheega haddii qof sunaad la nooshahay hadduu hadal kugu dhaho meel ku qoro taariikhda gaslightinka dhan saa ugu badbaadid taariikhda uu ku dhahay saacadda uu ku dhahay maalinta uu ku dhahay hadalka uu ku dhahay haddii berika maalin laysku imaado waxaa waaye adii asaga waqtigaas iyo waqtigaas ay dhahda buuggi lasoo bax soo inaanu ku waalin ugu yaraan maskaxdaada way ku nabadgelaysaa waa haddii kalean shakiya imaanaya malihin miya say ugu fikray inuu saa ilaahay heerkaas ayuu ku gaarsiina marka shaksiyadan waxaa waaye shaksiyadda aadka ay ugu cabsadaan waa narsistaha waayo ma ka helayaan bointiga ayaga ay rabaan way fahamsan yihiin waayo dareenkeeda ayaa aada u sareeyo waxa uu soo waday ogtahay markuu hor istaagan yahay qofka waxa uu sheegayo way ujeedaa beentiisa khiyaanadiisa way ka hortegaysaa markuu dhaho markuu la hadlaayo qofka way dhageysanaysaa dhageysta aada u wanaagsan waa dhageysiga mar walba waa idin sheegaa asxaabey inta qof dhageysanaysid waxa waaye qaladaadkaaga waa yaraanaya waxa waaye wax aada u qurux badan waa dhageysiga intaad hadlaayaha badan aada noqon lahayd dhageystaha badan noqo dhageysigaaga ha badnaado inta hadalkaaga uu badnaan lahaa dhageysigaada ha badnaado waayo qaladaadkaaga yaraan xataa dadka caadiga ee marka aada la nooshahay oo noloshaada ay ku jiraan dhageysigaaga ha bato waxaa badanayo dembigaaga marka hadalkaaga oo bato kanay dhahday kaasay dhahday kanay dhahday kanoo ahay kaasoo ahay hadalkaaga badanayo marka hadalkaaga yuusan badanin dhageysigaaga ha bato mar walba marka dadka sunta markaad la nooshahayn waxaa waa in dhageysigaaga uu bato in attentionkaaga uu xaadir ahaado aadan noqonin jooga maqane shaksiyadan waxay ugu guuleysanayso ama ay ugu cabsanayaan waxaa waaye qof xaadir qof kalsoonida naftiisana ee aada u sareysa waay aan shaki la geli karin aan la dhihi karin adiga saanaa tahay haddii la dhaho dheheysa aniga mahi og waxa ay tahay marka qofka kalsoonida waa inaad dhistid mar walba kalsoonida naftaada mararka qaar kalsoonida nafteena daciif ay noqon kartaa wax normal waay qof hooyadiisa maxay ku dhashay malac soo kalsoon wax la barto waay caruurtan markay yihiin waaba kalsooni socod waa hadda u fiirsa caruurta markay yihiin waa kalsooni socod sama laakiin bii-adii marka ay qofka weynaado waxyaabay oo lasoo kulmo waxyaabay kusoo daawacmay maskaxdiisa waxaas waxay keenaa in kalsoonidii mararka qaar duruufaha iyo danta aada la kulantay in noloshasi in kalsoonidii mararka qaar ay hoos u dhacdo xanuunaa kugu dhici karo mararka qaar oo kalsoonidaada hoos u dhigi karo laakiin maxaa la rabaa adigan dhinac kaleenta inaad dadaal aad samaysto oo mar walba aad dadaalkii aad samaysto oo kalsoonidaada alalehe marka istiraad kalsoonideeda hoosay u dhacdo inaad kor usoo qaado oo dadaalka aad samaysto marka shaksiyadan shaksiyad aada isugu kalsoon waay saas daraadeeda shaki ma gelin karo soo asaa ku daalayo waxaa waaye geedkaad kortid ayaan kula korahayaa waay dad maxaa waaye dad ayaga aada u naxariis badan waay aada u naxariis badiin dadka caawiya waay dad kalsooni badan waay dad naxariis u sameysan waa iyo jeceel u sameysan waay haddana shaqsigii sunta ahaa aanu loodin karin fiir intee in la-eg ayay muhiim tahay kalsoonida nafta markaad naftaada aad ku kalsoonaatid ood aamintid waxaa waa xataa dad kuwa sunta leh waa ka guuleysanaysaa mararka qaar uu rabo xataa inuu ku ciyaaro waxay sameynayaan waxay ku sameynayaan way ignore gareynayaan way daneyn la-aan ay ku sameynayaan soo asaga waxaasoo necebyaa qofkii sunta ah markii lagu sameeyo daneyn la-aan waa caroona aada u caroonaya waa buufsamaya asiga dhan aada u buufsamaa qarun buumaayo camal waa buufsamaa asi dhan
marka waxay ku sameynayaan dareen la-aan, way yaqaanaan, way barteen. soo marka qofka markuu isku kalsoon yahay wax walba waa ka guuleysanaya. Marka shakhsiyadan waxay isku darsatay koow kalsoonida nafteeda oo heer sare ah iyo dareenkeeda maxaa la lahaa oo aad u sareeyo oo ay fahmayso qofka kaleenta waxa uu u sheegay. nicmo waa ilaahay uu dadka qaar ku manaystay. mararka qaar xataa adiga waa kasban kartaa nicmooyinka qaar uu ilaahay dadka siiyey. waxaa arkaysaa shakhsiyadaha dadka mesela qof shalay shakhsiyad ahay maanta shakhsiyad kaleenta ayaad arkaysaa. waxna waa u dhalasho waaye. adoo u dhashay masalan adoo shakhsiyad nooc ayaad nooc kaleeta aad noqon kartaa markii aad meelo badan aad ka bedeshid oo naftaada aad ku dadaashid. shakhsiyadaadana mar walba waxaa waaye waa hagaajin kartaa. waa shakhsiyad aad u naxariis badan oo maxay ahayd caawinta dadka maxay ahayd laakiin awood leh quwad leh. fiiri qofka quwadda leh mar walba waxaa waaye qof ka guuleysanaya wax walba. quwadda maaha inaan qeelineyno, maaha quwadda inaan dadkii aan maxay ahayd aan maaha inaan sameyneyno istustus, maaha quwadda. laakiin adoo degan adoo aamusan ayaa qofka ka aargoosan kartaa. soo markaa fahamtid sabab ka mid ah waa sababaha loo barto psychology-ga inaad baratid sida dadka loola dhaqmaayo inaad baratid waa qayb ka mid ah barashada psychology. inaad fahamtid dadka inaad fahamtid qofkan qofaa ku imaanayo waxbuu kuu sheegaya. markaad baratid cilmi nafsigii, markaad baratid luqadii jirka aad ku darsatid qofka ku imaanayo waxa uu sheegayo. markaad baratid kamaan cabirka dareenka qofka uu sheegayo oo muujinaa. markaad baratid soo qofkii ma ku khiyaaneyn karo hadduu ku imaado. adii naftaada ku badbaadaysa, ugu yaraan naftaada way ku badbaadaysaa. qofka dhab ahaan oo caawimaad u baahan haddii ay dhacdo in qof uu ku dhaho caawiyo kaleente qofka dhab ahaan caawimaad ugu baahan waa fahmaysaa. xataa asagoon ku dhihin ayaa fahmaysaa qofkan caawimaad u baahan yahay, qofkan maya. qofka markuu gurigaaga kugu imaado amba saaxiib aad noqotaan amba daris aad noqotaan qofkan shartiisa intee in la eg tahay waa fahmaysaa markaad baratid. shar muu leeyahay qofkan. bini aadanka oo dhan sharay leeyihiin qof walba, laakiin waa la kala shar yar yahay. qof malaa'ig ma jiro soo maha 100% qof kheyr ma jiro. shar haba yaraatee wax uun shar waa leenahay, laakiin ilaahay subxaana watacaala nagama dhigo kuwa sharta badan. mar walba kheyrkaaga in la badiyo ayaa lagu dadaala oo naftaada laga hagaajiyo. marka shakhsiyadan aan soo noqonahay yuukaha waa mutacaatif alqawi dhaan af carabiga. waa qof caatifadiisa caatifad ah oo emotionally ah haddana quwad leh. labadiyo kulansaday kii sunta ahaay mar walba sababta uu soo aadayo maxay tahay dadka caatifada leh asaga caatifadiyaa ka maqan. soo qofkan waxaa waaye wax walba wixii lid ku ah way israasanayaan. waxaa waaye cirka dhulka way isku soo saas camal waa wixii adiga lid wixii iska soo horjeedo way isoo jiidanayaan. marka asaga wixii eberka ay u raadinayaan. soo wixii ka maqan caatifadii uu ka raadinaya. laakiin qofkan markuu ka raadiyo caatifadii maha qof caadi. soo wuxuu noqonayaa mid aan ka guuleysan karin, mid sida asaga uu rabo aanu u noqonaynin. ugu dambeyntii asaa cabsanayo. mar walbana waxay noqonaysaa in waxa uu dhahayo oo ka fikiro in uu ka taxadiro aanu ugu ciyaari karin sida dadka caadiga ugu ciyaarayo oo kaleente aanu ugu ciyaari karin. waana ku mahadsantahay daawashadaada iyo waqtigaaga qaaliga aad siisay. video xiga inta aan kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ciao.